ku qoran tahay laakiin luqadiina Soomaaliga ka horeysay 8,900 ilaa 12,000 oo sano bay jirtaa luqadiina taariikhdiina baadan garanayna taariikh kale tabaad u doodaysa Ethiopia goorta dawlad noqotay baa ku sheegaya 1889 bay noqotay waliba 1889 bay noqotay miililka xilligu jooga bay noqotay dawlad had ma lahayn laakiin dawladnimo baa noola aqoonsaday laakiin 1910 baan noqonay wadan had leh mataqaana dhulka ogaadeen la dhaha goorta qaadanay waxa qaadanay 1948 baa qaadanay anagoo konton sano anagoo dawlad baa dhulka Ethiopia waxay ku dhisnay dhulka inay xoogto dhulka Suudaan dhul baa ka xoognay Eritrea dhul baa ka xoognay Soomaaliya dhul baa ka xoognay Kenya dhul baa ka xoognay Eritrea Ingiriis Talyaani baa haystay Ingiriis baa 10 sano haystay kadib anagoo nagu soo wareejiyay waa sida dadka Soomaalida looga dhaadhiyay Ingiriis baa nii gumeystay wadan ka duwan baatiin Soomaaliga Eritrea waxa la dhahay Talyaani baa hadda ka hor nii gumeystay laakiin Ethiopia baa ka mitiin Ingiriiska dunida dhan buu qasay wuxuu ahaa dalaal buu ahaa dadka wax kala iibiyay dhulalka buu ahaa dhulka Falastiin wuxuu siiyay dadka Yahuuda buu siiyay Somaliland wuxuu dhahay dhulkan idinka Ingiriis baa nii gumeystay dadkan Soomaalida walaalihiina ah shaqa isku maalidiin wadan kala baad aheedeen waa bareen washka ku sameeyay Ingiriiska weeyaan waxaan ku weydiinayaa wareer inuu taariikhda saylac iyo goormay taariikhda haydeen anaka hadal baa noo socdo armayna dhigisano ninka oo aad qaadinaysaan waqooyi galbeed yaa saxiixay magaciisa ma taqaan ninka saxiixay kulli anigu waan aqaan ما كوادا Soomaaliya madaxa saxiixay Soomaaliya لا وح مدح لا ده ما جرو وسيدا موسى به عمل موسى به هذا دكده سيلع سو ما صحيحين وركتوغا بيعاين حتى قابيل كودا لما تشاري دتك سومالي لما تشاري وها صحيحين لا ده نين جنرال اهو ايثيوبيا هلا ثلاثه تصدر صدي اني ويل بريم على دي جرو جنرال انجليز هاي اي لبا اوداي او سومالي او وحبا غرانين او بلا education اهد ولا سو ودا شهبا لو شو والله ورقدا صحيحه وين صحيحين هكذا واحد دولة تاسبا كودا هذا مركا سو غدبو waxa weeye dadka Soomaalida uqdad baa dhahdooda laga abuuray tusaale yar baan ku sheegay siyaad bar anaga wuxuu nagu abuuray Tigray Liberation Front oo la dhigay TPF iyo Eritrea Liberation Front oo ahayd TLF iyo Ogaadenia oo ahayd ONLF iyo Oromian Liberation Front oo loo yaqaan ONG loo yaqaan markuu nagu soo hubeeyay dhulkii bay qabsadeen dalka Eritrea siyaad barabaanaga jira hadaad ogtiin siyaad barabaanaga jira anagana waxa sameeyay jabhad lado SSDF iyo SNM baa sameeyay labadooda anaga noo shaqeynay ila today hata ani kula hadlay right now way noo shaqeeyaan adeemihii baan ku sheegay SNM maxaa laga wadaa markaa waa Somali National Somali National Movement bay waxa weeyaan dadka waqooyiga ka bixayeen okay 1978 waxaanu imaaday SSDF waxa ka sii dambeeyay SNM oo 1984 ka imaaday markay imaadeen wax kale looma sameeynin ayagana Soomaali in lagu burburiyo baa loo sameeyay siyaad barana wuxuu sameeyay jabhad oo 4-5 ah si Ethiopia ugu burburiyo siyaad bara wuu ku guuleystay inuu na burburiyo anagana waa ku guuleysanay inuu na burburiyo ayaga burburina Soomaali marka waxa ku kala duwanad waxay ahayd jabhadii siyaad bara oo soo tababara markay Ethiopia qabsadeen Ethiopia dawlad bay u sameeyeen laakiin idinka jabhadii SSDF iyo SNM iyo USC markay dhig qabsadeen Ethiopia bay u shaqeynayeen waxa la dhahay Soomaaliga ha isku keenina calama sameeysta nin walba qabiilkiisa sameey tusaale aad baan ku sheegi karaa 1989 dagaal baa waxa ka dhacay dila genocide la dhaho Booraba dadka reer Booraba xasuuqa waxay ahaayeen ciidamada Ethiopia iyo ciidamada SNM oo alooshod u shaqeystayaan Ethiopia la shaqeeyay okay aan ka soo gudubna marka xagga markay marayso dadka badana war waadiya waxaan dhahaa Ethiopia way ku mutaysatay in dekada barbara boqolkiiba 20 la siiyo way idinkoo aad ogtiin fiir dadka Somaliland degan fiiriya waxa jiro waxa la dhaho Howd Reserve Area baa jiro waxa la dhahaa Gaashaamo Dawaale Jaamac Dubad magaalooyin 10 ka badan baa ku tiri kara oo dadka isaaka asalkooda degan yihiin maalin walba la xasuuqa cid joog dhihi karta kuma jirto
fiiri maalintii ugu dambeysay waxaa waxa xasuuqaya maaha federaalka waa qabiilkan dowladdan karagsanaaday xaas ninkii maalin hore dagaalkii ka dhacay dawaalay 3700 oo isaaq oo habaar Yunis baa lagu xasuuqay ninkii dadka xasuuqaya waxa Soomaalida iyadu badanagu ma no aw baa ka dhacday hataa qof damiir leh tahay ninka bariga Afrika ciidamada Ethiopia federaalka qaabilsan waxa la tashoma tafarrab la dhaw waa nin amhaar weeyaan ninkaas baa amarka bixiyay in dadka Soomaalida la xasuuqo dadka ogaadeenka masaakiinta adeeysi ayaga na xasuuqay ayagaaba hor ahaynba tusaale inay hor ahaynba ku sheega ee la borka madaxweynaha iyo waxa iyagu ah no Ethiopia sidaad u maleynaysaa hornimada noocaas ma ee la borka jigjiga qof Soomaali mas'uul ka ma ahan isgaarsiinta jigjiga qof Soomaali mas'uul ka ma ahan korontada qof Soomaali mas'uul ka ma ahan sirdoonka qof mas'uul ka ma ahan shidaalka dhulkooda laga soo saaray qof Soomaali kuma jiro oo mas'uul ah adi xornimada maxaad u taqaana in caalanka la wato qori la qaato jidka la soo socdo no waxa laga ilaaliyay meel walba Somaliland iyo Soomaaliyada halka boqolka qof daawanay waa dhageysanaysa ninka Ethioopian ku hadlay Ethiopia warkeedu waa cad yahay no way isku noqonaa hal dawlad baan samaysanaa wala ka baxay imanka Soomaaliland iyo xaas idageysa walaal hadaa dameer leeda adiga baan kula hadlay gabar isaaq hataa ama gabar Samaroon hataa ani wani kala garanaya qabiiladiina maskaxda niga gaalay hataa gabar isaaq ama gabar Samaroon ama gabar Isa dadka dawaalay 3700 oo lagu xasuuqay ciidamada federaalka Ethiopia ba xasuuqay ciidamada Soomaali ma xasuuqin hadalkayga si fiican u faham hadii qiimo leedahay kaali bal aaw adiga no waxba ma aawi kartid mata qaana ninka maayarka Hargeysa haysto oo la dhaho hebel mooga mata qaana inaadeer maxaan mid Ethioopian iska celina Mareykanka jooga xitaa nacaayo qabaandibada xaddan hayay dhibaatana haysatay inaadeer tiri idageysa madaxweyne Mareykanka dhinac naga caay adigaaga Ethioopian ka nacay dhib badan nima aynayo wala nima aynayo Soomaaliya waa isma qalasan wala ayaga dhaxgari nima aynayo problemka dhigista waxay tahay lagu xijiyo baraarugtay ayda problemka ni haysta waxay tahay qabiil walba alam boo sameystay qabiil walbana wuxuu aaminsan yahay inuu qabiilka kale ka fiican yahay dhulkiina maalin walba la qaadanaya adiga hada waxa laga qaatay Ethiopia ka hoogtay dhulka weyn dhulka Somaliland laakiin kama haddi kartid intii tamir yaala lahayd adigoo gabar Soomaali ah muslim ah dadka walaalaha Soomaali ina la heshiisid aad midowdaan dhulkii xoog laga qaatay dib ku soo ishaleed ba dhulkii adiga haysata ba ugu sii daraysa oo maxaa kugu jiray iminka adiga maxaa kugu jira Soomaaliya inay burburto ama Soomaaliya inay dawlad noqoto maxaad ka dhex faayay iminka Ethiopia burburto iyo aday noosho waxba iguma dhex jiraan Ethiopia maxaa kugu dhex jira aniga baa ku sheegayo horta aniga Soomaaliya maxaa kugu jira سؤال وادي ويدس كبح إن هذا فيري أنيجا أم هاربان أحد سياسة الجيش أفريقيا هذا لا سؤال سؤال شاد إمادة ويدي له أورمادي وهي سميني سواه له إكسبانديش لولكي بي بوبيسا أنا قد قال بين نوجو هيسا إذن كأوجو دمبيو دتكينا بيحسوكيسا أوجو قف مادو أوجو ميستا كجرو 2026 وقف صومالي كلية عالمك وقف مادو قف كانوا مادو قميسانك هل سؤال كويدنا حدي أمحارة صونا قطاد أمحارة توبي وكترين جرتي تقرية كسي ورئيسي هدي ديبو صونا قطو مولي وحكسي شقين إنسان سومالي لأننا سيما مشان سومالي سي كلا جرجرتان مسا دولكينا كو إكاد دونتان إنا دولك سومالي كادانا بانكو تشانا أنك لكن إذنك إناد مدودا أونيسكا كإليسي باديدين فيري جامعات لدها ما تكانا تسالات بانكو شيغيا جامعات الماس لدها جرت يا اداما وهي كوتالا هرغيسا جامعات اس انيغ واتغي سغال ايشا waxa ku sameynaya investigation جامعات marka tag almas balada hargeysa bay ku taala aan weeyaan babler library bay leedahay buug meel lagu akristo buug waxa jira la dhaho the shadow of lineage of North Africa dadka isirka dadka East Africa baa laga sheekeynay buugaas waxa ku qoran nin Ethiopian baa qoray أنا أمهار بارها دتك أمهارت ولكن دت هون ويان كار وها بوكاس كوكر وهو ليه إسر كسومالي كهال ماهن دت كسومالي ذو دت ليسكو جي ما بإسلا دالامبا بالفيري دت كهرجيسة كنا الوها لقى دادي إينا يا دت كسومالي ذا إسكو إسر ماه ودت ليسكو جي literally دت كسومالي ذا بالكلا جشريا أيجنا وهي جارا لاين بالفيري أيجنا وهي جارا لاين وردت كان إسكو لوكات بانان
isku diin baan nahnay isku midab baan nahnay gabar baan kala qabnaa gabar bay naga qabaan isku taariikh baan nahnay isku dhaqan baan nahnay isku dhul baan nahnay nin isku diin aanan ahayn ana isku dhaqan ahayn baa inuu ii yimaado wuxuu iga dhaadhicinaya in ayaga adow ay yihiin aniga ana mahar baan ah qori baan sitaa oromada dagaal baa igula socdo laakiin maanta hadday oroma iyo soomaali isdagaalaan ana oromada baa la jiraya sababta waa walaalkii isku wadan baan nahnay literally ininka awaan baa noo qotay bal fiiri dhulka Soomaali dhulka weyn baa nigala qaatay waa dhulka NFT la dhaho ES iyo dhulka Soomaali galbeed la dhaho meeshaad midoobi lahaydeen aan dhulkiina qaada lahaydeen baa maanta ninka era la dhaho sidii feminist oo madax hiiran oo sida u malaysid baabuunka oo absolutely wala nabda rantaha caay madaxweynaha marka ma galadan doon aniga buu madaxweyne ku aniga adoon booyay aniga adoon booyay siyaasaddiisa laakiin madaxweynaha caayda waa khalad kadal ninka mudagaysa adiga madaxweynaha ayagana dar waan galay muude laakiin shaqeeyo caayo idagaysa ما صح صح عادي جوج براد ما يدعي السياسة iyo arrimaha waa laga hadli karaa laakiin ayaa qalad intuu ninka dhameysanayo fiiri Ethiopia oo jaanis haysataa waa wadanaysaa taariikhna waa wadaa si saxna waa u sheegaysaa laakiin caayda yaraysay macnaha si aan dadka loo baahan yahay inuu ninka faraha laga qaado haya ما عاي ما جرت انا يدا انه عاي dabadhilif uu sheegay dabadhilif qaan wadan fiiri idagaysa kala waa laga afgo'an sakaray dhaaf ayna daraasa ama khayna kuma sheega ma khayna kuma sheega kara khayinte Soomaali ba Soomaali Ethiopia ba Soomaali mi diray ha kuleeyahay ciro waa gaal dhalay naga dhaaf furkiis marabnaa soco war dirqaad wax igama geline laakiin aniga inaad madaxweynahayga ma caayi karo Soomaaliya أنا كقاي أنا ندونين مركان نيكا واحد دريمي مركان نيكا روانين محيه سوماليا صوت هذا القصة حدودين مياه وركاس وعدي هاي وبوق يا نوفرم وركاس وعدي خلاص أدينا إثيوبيان عايدا نجدا كسر وحي سياسة وكاد لكرتا لكن عايدا أوكي فيري أنا قدرت هنا باني شقيا مو يا لها تلاك عدنا تقال أولوس باكاسودو ديري دبا باني غلا كاتي حرر باني كاتي ششماني باني غلا كاتي حواش باني غلا كاتي لفا إيسا باني غلا كاتي أندوف تو بالا كاتي بابلي بالا كاتي ورصدن مغالو إذن كاليدين بالا كاتي داتكي هورتا آيه سومالي دا وانانود انت أسو قرمالاين علامة بيساميستين literally علامو إساك علم بوتا سومالي لا إنجليز بانول كاداسي ما شرتين كعلم بوتا أنا إمارات بانتونينا وار شارع وار دالك ولا سومالي لا أنا كان يبود لانو بوكو عشرين وارنا بس ما هتصنتين أروان كفهني وار I don't care مقديشو حتى هوية بالواس أنا واحد باي جمع قال دات كينا إثيوبيا ده بالو ما ده مقال ما حي كرتير ده مقال ما حكى قلدم أنا أنا كان عايز لقيت وشيء طبعا بس إذا البطل يقولنا مش هذا مالينا إثيوبيا دي الوحيرة بوصل دليل هرتو فرنتا مركا laga hadlo Ethiopian Daily aan wax badan oo ka qorinay baa jirta intaan mood iskaga jiri waxyaabo ugu wax badan waxay dhulka DDS shidaalka laga qodayo Soomaalida degan ma ka hadli karo carwa kaas ayaa been waa dhihi karo xitaa anigu xog ogaal waxaan u ahay intii la qodayo dhan in ay Soomaali shaqo ku leeyahay markii la qoday sida news-ka aan anaga ugu wada aragnay si lamida waa dadka meeshaas ku degan ay ku soo baraarugeen ma fahmaysan marka wala isku maqan yahay dhulalka hadartaan hawaas harar oo sheegayo dhul Soomaaliyeed weligeed ahaa jirtay waana la qaatay fahmaysan marka Soomaalida inta badan wax ma fahmaan mideeda kale waa sax hadal oo dhahay oo aan qalinka ku duugaya baa jiro oo hadaayba aniga dhahay leena gabadha ay dhahayaan hadalkaas oo ah Somaliland dhulka maanta ay haysato dhul ka weyn baa ka maqan oo hawd safe area dhulkaas dhulka DDS shaqo isku ma lahan British protectorate ahayd dhulkaas okay waa la qaatay dhulka ilaa hadartan anaga waan ka hadli laana midna waan la qoyo waan su'aal aad weydiiseen baa jirtayo maxaa adiga Soomaali oo danaheeda ka galay oo amxaara ayadiyo ku dhaha oromo waa leeqana maanta dhul balaarsiga wada soo dhul balaarsiga oromada wado
waxa u qoran dhulalka Soomaalida ee leedahay kaliya ninkan amxaarka meesha oromada oo ka fogeysanayo in anaga ka fogeysanahay sababta oromku wuxuu nala sheeganayaa dhulkii Soomaalida ee Djibouti ka dagaysay oromku wuxuu nala sheeganayaa dhulkii Soomaalida xorta ahayd oromku wuxuu nala sheeganayaa dhulkii Soomaalida DDS oromku wuxuu nala sheeganayaa dhulkii Soomaalida NFD intaasoo dhul meel walba waxbaan ku leenahay maalin walbana mooyaaladan u dambeysay badda casna waa rabiya badda casna waa rabiya ma fahmaysaa marka midna waan kala baxay oo wuxuu ku dhahay jaamacadda yani ma taqaana almaas baan tagay buu dhahay okay haba taga ma xume dadka Soomaalida isku isir ma ahan baa lagu dhigaa buu dhahay arwaa kaasay yaa diidi kara maalmihii u dambeysay meenan dhigihiina ku soo maqlin Soomaali waa la wasaa anu Somalilander ay dad dhaha wax Soomaali la yiraahdo ma aqaan wiil Soomaali ah wuxuu ku leeyahay wax Soomaali la yiraahdo anu ma aqaan Somalilander baa isirkaadii mala duufinooya mise mala duufinooy marka waxyaabaha soo dhan fakti ahaayeen baasha gadaal oo ka dhiiqeystay laakiin inta naftirkeeda inay dadkeena ogaadaan wax weyn oo tawaana kaaga mahad celinayna runtii hal daqiiqo waan soo gabagabeynay hal daqiiqo muddo badan baa hadlay horta mid baan ii sheegaya lagu siinaha ka cabsan summary no summary batana summary okay malaga galaya ku soco waxa jiro Abiy Ahmed muxuu ka doonaya aniga waxaan jeclahay xaqiiq markaan ka hadlo magaca Ilaahay baan ku hadlayaa aniga qofka adoo ka imaada Hargeysa ama Mogadisho iyo Jigjiga waa qof Soomaali buu agteeda ka yahay wada deris banaanay waan isoo shumaynaa laakiin oromada waxay niga damacsan tahay iyo waxaad ku fikiraysiin way kala duwan tahay warqadan aan isoo saaray waa 2009 nin professor baa qoray wuxuu leeyahay dhulka Soomaalida the Somali the territory that now Somali claiming are belonging to Oromo people dhulka Soomaalida maanta ay sheeganayso asalka waxa la haajiray Oromada waa kaas way ku qoranta wuxuu leeyahay the long time ago most currently Somali territory on Horn Africa belonged to the largest Cushitic nationality of Oromo now as Somali as Agala and the other 100 of years until the end of the 19th century of a nomadic Balfiri waxay aaminsan yihiin Ahmed Gurey ninkii la dhahaa dhulka hoog ugu qaatay dhulka Oromada la haajiray Hargeysa waxay u yaqaanaan harta Geysa oo ah geedaha lo'da geesaheeda Barbara waxay u yaqaanaan Barbara sida basbaaska kuleelka ah Barbara idahan dhul walba magacyadii Soomaaligi bay bedelay Oromay ka dhigeen waxay ku tashanayaan dhulkan Oromada in dhulka Soomaalida inay sheegtaan therefore ay hadda waxa jirto arin lacag looga dhiibo oo lacag loogu bixiyo waxa ka mid in la dhaho dirta iyo Oromada walaalo weeyaan laakiin aqliga ku jiro waxa ka mid ah markay imaado walaaltinimada dhulka Soomaalida kaliya baa lagu qaadanaya dhulka Oromada markii la rabo walaaltinimada ma shaqaynayso laakiin dhulka Soomaali markii la tago dir baanaanay Oromo iyo dir walaalo weeyaan ilmaha buush baatihiin anaga aniidan leh ububu dhulkiina naasiya laakiin okay ani dhulkayga waa ku siina anigana dhulkayga isiite adigana dhulkaada isii no adiga dhulkaada kaliya baa lagu qaadanaa walaaltinimada laakiin ani dhulkayga ma la qaada karo taa waa Oromada aqligay wataan okay marka labaad waxay tahay maalin walba 3,000 oo Oromo la soo geliya Hargeysa halkii hooyo Hargeysa imaado 7 aruur bay wadataa 7 ku dhufo waa 22 3,000 oo hooyo markay soo gasho oo ala hooyadii 7 unug ee wadato waa meeqa ma taqaana 3,000 ku dhufo 7 waa 210,000 oo qof baa soo gasho maalintii okay dadkaas xagee la geynaya marka waxa jiro 2025 ka bishii February waxa dhacday رئيسul wasaaraha Ethiopia warqad buu u qoray United Nations warqadaas waan hayaa laakiin hadda ma soo saari kara mobilka baa ugu jira warqadaas waxa lagu qoray in dad minority Ethiopia ay Hargeysa ku nool yihiin hadii la soo weeraro mustaqbalka in dawladda Ethiopia xaq u leedahay in ay gasho balfiiri hadda already dadkan idinka maalin walba la soo gelinayo ma ogidin laakiin mustaqbalka dangerous bay ku tahay caruurtiina waa gobolka Crimea la dhaxma taqaana oo Ukraine sida Ruushka u qaatay caalamka waxa jira waxa la dhaho dad minority-ga ah
dad minority okay dad minority ah wadanka markay ku nool yihiin dadkaas asalka wadanka ka soo jeedan xaq bay u leeyihiin inay weeraraan ee wadanka difaacaan ma fahamtay so sidaa darteed dadka maalin walba la soo gelinaya dhulka Somaliland taamineeda waxay mustaqbalka dadka Somaliland waxay ku noqon doontaa sida Israa'iil ee uu noqota dadka Falastiin dadka maanta soo dhaweysata ayaa biri qoorta ka jari doono tawayna ogaata mida labaad waxa weeyaan Ethiopia maalin walba 6,000 oo tan oo chat bay keeta mahaladaha Hargeysa Berbera Boorama dadkaas daraagis baa la siiya adiga maxaad ku badalataa waxba kuma badalatid sababto ah dad baa lagu soo gelinaya dad illegal baa lagu soo gelinaya dadka illegalka lagu soo gelinaya halis bay ku yihiin mustaqbalkaada tusaale aniga kama soo horjeedo Somaliland iyo Soomaaliya dhexdiina ma galay laakiin waxaan leeyahay qofka Somaliland Ethiopia markuu aadaya fiiriya waa kaas oromada waxay soo leedahay Hargeysa is Ethiopia city kula waxa weeyaan dadka Somaliland markay baxayaan dadka Somaliland markay Ethiopia dili waa discussion gareynayna noo soo gaabay waayo okay waa soo gaabina dadka Somaliland markay Ethiopia galayaan visa laga rabaa si legal bay ku galayaan qofkay u socdeen bay sheegayaan taleefankooda bay sheegayaan tikitkay ku soo laabanayaan bay tusayaan dadkay u bahayaan bay tusayaan laakiin way dadka oromada ee isaga soo galaya wadankiina halis buu ku jira inta weeyaan sababtoo ah Ethiopia hadalkayga si fiican u dhageysta anaga sharci baan isticmaalnaa sharcigan si fiican u dhageysta 195 qof baa daawanayso Ethiopia had ma taqaano ilaa hoogeena meeshuu nageeya baan leenahay anaga had iyo